دين إسلامك وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله موجورة ديمقراطية الحكام dadku inay sinaadaan weeye qof kasta dareenkiisa inuu dooda ku cadeeyo weeye dalka talada tiisaahi dadka inay dhex taal weeye hadba tii ay doortaanna dowgi sharciga weeye misla qaadan durbaan garashow diyaan dig loo duul maqan u yeer anaa ku dirtay dadaal dalkii dibaddaba dhammay dabayl nabadeed ku baaq dabkii gobonnimo belbeli midaan damin dogob jasaar sidee lagu helayaa dun doob cilmi baariseed dibnaha gaabsaday dalqami dareenka gawaray darari qalbiga daxashaday dihnadi dindimi maan iyo dilkii doocdooci kaskii dihnaa ku dooji dalkii maraa ku doono dantii maqnayd dulmiilaha kula dagaal sidee loola dagaalayaa waa midadna aqoon ee aan hadda barano waxaad dirsataa aqoon waxaad doontaa xaqiiq waxaad u dagaalantaa midaan dembi kuugu jirin waxaad dugsataa ilaah waxaad dad xigaashataa yaa tolkiina midkaa isku diin tihiin doodana ku heshiis tihiin dantana isla leedihiin yaa cadowgiina naftaan dirashada la baray dayaysa wax doon la dhaho waxay damacdo aan aqoon u duubanin dooristii u doodan dantuu lahaa ka daahan xaqiiqadii ku daashay daleesha maran dayowdeed dalanka ah durbaan garashow u deeq oo maxaa ugu deeqdaa rabbaa doortay u sheeg xilkay dayacdo u tilmaan kuwii dalaga u cadday inay ka dhigeen damiin inay ka duween jidkii inay ka dadeen xaqii inay u direen halaag inay ku dumaan qabiil inay ku danqaan tola'ay inay ku dagaan hunguri inay ku dalalahayaan waxaan dibnahooda qoyn inay ku damaaciyaan deeqaan gacanta ugu jirin inay ka daboolayaan maxay ka daboolayaan inuu rabbi deeqsi yahay ma deega aan waayin yahay ka doonaba siiye yahay dadaal loo baahan yahay durbaan dadka igu sheeg oo maxaad ugu sheegtaa daliil mudoorsamaha war kitaabka alle ee mudoorsamaha aan fahanno daliil mudoorsamaha duruusta cilmiga dawri dilaaci samaa darsoon durbaan dadka igu sheeg maxaan kuugu sheegaa qabyaaladii waa dareen wax duxa iyo daawo ma leh ka daran duumiyi xanuun ka daran cudurrada wax dila ka daran oo daawo ma leh bulshada way doorisaa waxay dalagtaa kasmada waxay dumisaa hanaan waxay damisaa ilays xaqay la dagaalantaa dulmiga wou hiilisaa waxay ka didaa cilmiga waxay dugsataa jahliga qofkeeduna waa degaa maxaa ka malaga hadday leedahay wax dana rabbaa noo diri lahaa diintay ku ardaan lahay durbaan dadka igu sheeg maxaa igu sheegtaa cadaaladii waa dugaal waxay deeqdaa bulshada waxay mayrtaa dembiga dushaaday nuurisaa dalkay nimcadiisa tahay doog iyo ubax bay u tahay duunyada barakay u tahay diintana dhaqan bay u tahay run bay isku daaban yihiin xaq bay isku gaashadaan sidii hogoshay da'daa sidii dayaxay iftaa sidii daadkay fidaa sidii subagay duxdaa dib bay ku naafacdaa dadkaygow waxa ballana dardaaran intay karaan dibnuhu waa tabinayaan durbaan garashow diyaan waydinkaa gaabinaya haddaan taa halka kaga gudbo in yaroo kale waxa duumiyey qarankeenii oo doorshay quruxdiisii oo dowga ka habowshay dadkan waxa colaysiiyey dilka iyo dhacna keenay iyo gulufka duulaanka iyo daadufka iyo caydha iyo dalowga maariyaadka waxaan weli dib loo eegin dadna aanu isweydiinin dowladii ku dhaqankeeda markaan duulkay u heedhay markaan dayay garaadkayga ee doonay nuxurkeeda ee daashay madaxayga nin dayaba ku sii dayday dowladnimo dalkan maaha dalkan iyo dalkaba maaha idooroo keliya maaha sacab iyo durbaan maaha danan iyo mashxalad maaha kursigaa ha ka degin maaha sinji iyo dirsooc maaha dadka yaa xiga maaha way doonayaa maaha
ويديدن يهي ما دفاعي قلوف ما دبابة قرحة ما دريس يقرينا ما عصر كي كنت لفتانا دحية سفار ما دوق كل أحلانا درامية قرقرة ما يا درمتي بروتير سيدا أولى الدين ما دولا إذا ما دمبرك ليلة عنها الدرمان ما وحلا الدين زنتاد ما وحلا الدين كان ما يا معايتا دولتي يقول لك كذا متك دون يوم قعل دوكسكي قبات كذا دستوركي أحلى قوية وذر لودك سدي وياه دولتنا فلوي أصل كي كل درستانا دراسة علمية دوك يكون أحلانا دا عادي يكسر وي دربتي برور تالا دمبرك يقيد هذا وحن أرد بدين وياه ترين كنا أبيعي هذا شلي دنيري من تيعورته متانا داشة أما الله شيء ما ده ما توعد لنا حل ما لكن عاي لا ده بروب لا ده نمع لا ده إيش ما أردته مسكح له وحلا صور السيوح وحب ما لكن هو قرشة وقتها متكتاكل دنيونا أما جدا قعل ولا الكيو هكون دار المال دراني هكذا دون مراني هاد بقول فدويين هاد بدور هايضين هاد بدور هالجورعي هاد بدور هالنجارين واحد دون قرن ما ولا دولة ما أنا كنا دنتي ما أدنى جودا ما مركداga Soma haddii ayan adiga daawo ku ahayn ama dantay ahayn maxay isugu dhibaynaa walaalayaal raggiina soo fadhiyay gabdhihiina kharash badan baa idinku baxay ilaahay wuxuu idin siiyay kas aqli caafimaad qaba islaamnimo iyo culum waxa soo dhex fadhidaan maalin walba reer oday miyuu jooga baan magan uga tihiin darajada iyo jagada ma dhaqan basharba ma dhaqan dadnima taariikhda wax loo bartaa dhacdada loo biiriyaa tagtada loo baafiyaa kaskaagu inuu bogtaa abkaa budulku ka tegey intuu ku baraarayo intii baasaha lahayd si aan bari loo khaldamin waxaa ku hoogteen oo ku bacdeen oo ku qaran weydeen oo ku qurux weydeen oo ku qiimo weydeen oo ku qadarin weydeen oo ku qaynin weydeen baa weli rabtaan kulligii reer baa rabtaan aniga haddaba ilaahu marakaaho anigu reer ma rabo anigu qaran baan rabaa anigu dowladnimaan rabaa anigu shacabka soomaaliyeed oo midaysan baan rabaa aniga shacabka puntland oo ka xoroobay reer baan rabaa yaa ila rabaa waddan ma ila rabtaa madaxweyne wargeed ma ila rabtaa haddaynu run tahay oo aynu rabno wallaahi bilaahi talaahi waa gaari karaa sabab dadku wuxuu baahay cadaalad waxay abuuraysaa kalsooni waxay abuuraysaa midnimo waxay dheeraysaa horumar wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa jaalaahe Soomaaliga iyo sida uu qiimo u leeyahay isugaanteenu sida marka dadka wax loogu sheegayo ay u tahay wax aad iyo aad u qurux badan marka aad u mahadsan yahay boonshuwe madasharafka qiimaha leh waan idinka mahadcelinaa fadhigiina iyo dhegeysigiina quruxda badan madaxdana sidoo kaleeto waxaan rabaa hadda inaan kelmad siiyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland maxamed cali yuusuf gaagaab oo hadda ka mid ah guddiga dastuurka ee Soomaaliya kelmadiisa ku aadan barnaamijkan ayuu soo sheegi doonaa
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن مدحوينه بروفيسور علي محمد جيدي دمان تيم وراها وسيلة حلبانة يا دمان تتكمل شفلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كدي أنا وياها كان بخبين وأنا فرسمي يغان دستور بنا وياها كنتي لا صراحة وأنا رأى أنت على الدستور كم قدني إن أنا ما هذا عليه هي هذا ستة هذا بسيطة مثلا وأنا فاهم هاي وسواء من قابسين كلهم كان سجعة هي وسارد رمها بدها بنتنا ورينا عوشة مسؤولية هذا قاضي وضبلا هي قرآن لنا دربي يكون جن والديمقراطية يجب هالشيء إلى ما أنت أن بنتنا أساسني وكهلي ولنا لما قالوا ما ندوا وحلا يشيسين هي قالوا عيد يدقحن معها وضد بني آدم يجي ولي بنا كي كلتشوبه ويشيس ما ينقى لنا قالوا مني بس هوش عقبه وحي قال كريمية بس إننا أقوم تدي يطلب تدي نهاي لا وحنا شيء يا وحوي دي بهالشيء سومالية هي ميت دولة دولات هي ميت دوينة سومالية ولي حالة دولة مدوى إلى هذه الواحد أركيسة بيرو سومالية وصلوا سنة بعد الدجال كيسوكي ولد العالمية واحد كل العالمية أنها يجري وعنو شيء يا مركز سلوغان كاس وواحد ونأكسن هذه الجربة هنا الخصوصية دي بهالشيء هي الديمقراطية وواحد ورا المغوبة عن إن المسحوسينو إن المؤتين قارين أنت كبعدي أنا وحن مدة لبا سنة بنتنا وكيل واعي ديمقراطية دستورك قرنك الصومالية دستور كاس وحتى أقولتينه لقمنا رقمه لكن ما قاعدين هو دستور الصومالية وكمية قدية أنا وأنكمل لما قدية قدي تكنيكال هي قدي أرماء السياسة يدلو يكسره وحاولوا تركي قضبضا حتى أن كهذا إنه وماشي كحرا سلبك سجعوا السوق أو لا بعد السنة أنا أقول قال ويلي إن عندنا ما يصيرون ظروف بلان أو كحرا برتو ظروفها كحرا وحكى معها وادي هالشيء الآن توي قلب كي لسوق أو وأننا أنا ساتنا منه هذا أنا لفيه وكاركتي وأنا هلو كنت قالوا كتير لحية كمان حلوة بعنا لحية واحد كي مالين دولة كورية شنا واحد كي مالين برلمان كا سوماليا إن كاركتنا هي مسؤولية ولغاية هالقضاء إن أنا بالكدورنا سلا أنو وشيء أماه عبرنا هنا صوت أبيان على الموضوع عصر الموضوع ده لكن تدوينها الصومالية مركز وجوه وحالي هذا دستور كي مروح على وجهي واضح مروح على مشروع مرة بين بالوطوة
labadooda midna ma jiro hadda anu jeebka igu jira lamana xalin mashruucna ma ah puntland aasaasayaasheediina ka mid baana ilaa xildhibaanna waa ka soo qabta cidda aan ka xadhaya ma shacabkan anagu aasaasaha u ahaa mase waa cid kale haddee rin baa weydiiyey dastuurkii waa la xadhaya ma soo celisay xadid hadday jirto iyo dhammaystir la-aan waxay ku xiran tahay dib u heshiisiin laftigeeda taa la sheegayo oo hay-adda soo diyaarisay aad baa u mahadsanyihin wuxuu ka kooban yahay 143 qodob 5 qodob oo ka mid ah mushkiladda oo dhan 5 qodob oo ka mid ah weeyaan 5 qodob waxay ku xiran yihiin dib u heshiisiin yaa laga rabaa dib u heshiisiin waa dowladda dhexe federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ilaa iyo maalintaas الله شرف علي محمد جد ما كوك من مسؤول هو وبرايم ميسر كيبوه بيجوا إلى هذا السياسة اللي هو بحكي هذا ويسوي إن وح لهذه الآية ونكرر الآية دولة الجمهورية إياه دولة الدحيح قد بدأ عن شيء إن تكوه الله هشيا هشيس عن تاس محيط لسه وحير وذوقي مكسور قوية وسير جوه يا لو امتحان كدولة كنت لا محرك الجيران أنا مو والله مسج من كود الوحانة وقاعد ميك قواه الله يراها وأنا مسمعنا وأوضح الله وحنا وسير هذه وسيلة التعليم في السنة ما تجي وسيلة وحباشة والنظام كفدرال كاسدة أو يهيني هذا هو حاليا شهادوينك دكسير سريع ودول الجمهورية كسر إنها تسبيق يصير كبير أنت أصدقنا لكن وسيلة وحباشة والدولة دولتها حبناها كدولة فدرال سلا سوكر وامحي بيرها عافماك وحي برشلة تابعية ودردوينها تابعية وطوصو تابعية وحويان وإستيت سوي ودولتها دولة الحد حبلنا ما دولة الحد واجي أحد يقرن كان نقول إنه يلوي شوي تتلوث على دولة كريمة مصير أنت كروا دولتها حبنا سوف تقلوا الإنسان سوي شيء جماعة دولة الحد واحد بتاع كنت ومساعدون دولة قبائل أنا كنت مساعدون ويا ولا سكت لما يقوي السير بمركز سومالي جبت وغلط قلبنا كان واحد كمله مثلا دقيقة قال واحد إلى دولة قبائل أنا والدي أنا واحد نلاقي هذا معي دولة بنتنا حبينا واكلنا هي دولة فدرالك لكن دولة قبائل بني أكيد بني ومعناه وين ستيتس مركز أفكار كبيرة هذا ستيتس بني دولة فدرالك لما يجي هذا رجل ستيت لما يجي مصر تكلم يعني وحيانا الاسبوع يستكمل هذه شيء سكر طبعات وحن قال هذا سوداوية قضب كدي وهشيس الديمقراطية لبضع بس صديق وحاوره صديق دستور السنة هشيسية اللي أنت أسأل كيس جدا قضب بلا أصلا لما هي معنا دي بهشيسية كانت أول مرة سؤال كده حيسنك دي وهشيسية يا دستور مركي لا يسكت دوا أنا مركان دول إنه وحنا والدستوركم مدحوينا فرماجان كوي كان وحويا سوماليا واكرة تكت وحنا بدأنا دي سكون ستو وخلي هكذا واكر مركا هدينا نسترسني ما هو اسمه مني ما أكرم غنى قبل يوي أصحابي وكلامي لكن استقامة مرة اسمه مسلم ولا اسمه مسلم
marka inaan isguursano waxay u baahan tahay dib u heshiisiin qodobadaas in laga hadlo ayaa u baahan tahay. hadda aniga waxay keenay inaan khudbada akhriyo ma keenin, waan soo galay waxaan ku faraxsanaa, doodaan ku faraxsanaa, waa la ii sheegay, laakiin waxaan soo dhaweyn lahaa oo aan rabnay halkaan inaan ku qabanno dood dastuurka ku saabsan shantii qodob oo ugu dambeysay, shantii cutub oo ugu dambeysay oo aanu dhammaystirnay ayaa waxaan isugu yeernay dowlad goboleedyada, dowladda xubnaha ka horan iyo golaha shacabka iyo aqalka sare kulligood xubnaha ka socda. mudane madaxweynaha puntland isagoo mahadsan isagaa noo ogolaaday inaanu halka kan doodaa ku furno oo waxa weeye puntland bay waxay u tahay sharaf, meel kastoo aan kala ku qadana waa weeye. dowlad goboleedyadii waa noo suuntoo wey, qaar burburay, qaar liita, qaar xaraysan oo la isku haysto oo xayndaa ku wareegsan yahay. marka meesha keliya xorta ah oo caqli lagu heli kara waa puntland. idinkana waxaa leedahay dib u heshiisiinta iyo caqliga soomaali dib laysugu keenayo halkaan aynu ka aasaasanay aynu sidii wadno. aad iyo aad ba umahadsanta. waxaan u mahad celinayaa madaxweyne ku-xigeenka hore puntland hadda ka tirsan guddiga qaranka ee dastuurka. waxaan rajeynayaa wax badan inay halkaan ka faa'iiday. waxaan rabaa intaanan u yeerin marshadeen ku xigta inaan idinla wadaago iyo wasaaradda arrimaha gudaha aan ay qaybinayso fariintan aan gacanta ku hayo oo ah fariin toos uga timi madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdullaahi deni iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed barnaar. intaa kadib waxaan u yeerayaa sharafnaya inaan u yeero madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee soomaaliya waxaan sharafii ah inaan u yeero wasaaraha ugu horreeyey soomaaliya cali geedi waga khaalseen. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan salaamayaa madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdullaahi deni, golaha wasiirada dowladda puntland, xildhibaanada qaranka ama federaalka, golaha wakiilada puntland, madaxda garsoorka heer federaal iyo heer puntland ee goobta fadhiya, madaxdii hore heer kasta ay ku joogaan goobta, aqoon-yahanada iyo gabdhaha, iyo dhammaan inta brotokolladooda aanan koobi karin ee goobta fadhida. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan u mahad celinayaa marka ugu horreysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyadda dowladda puntland, wasiirkeeda maxamed dabancad iyo agaasimaha maxadkan sidra iyo dhammaan inta la wadaagtay ama la shaqaysay ee qabanqaabisay munaasabadda tanqaaliga ah ee maanta u fadhino. waxaan xusayaa oo aanan ka tegi karin, dadka ma wada arkin, aduguna waayeel buu naqday. waxaan u jeedaa siyaasiyiin fara badan oo ila soo shaqeeya 3 sanaan dalka ra-iisul wasaaraha ka soo ahaa, oo aan u jeedo deeqacul ujoog halkaa fadhida. waxaan u jeedaa diblomaasiyiin ay ka mid yihiin maxamed cali america iyo nin halkaa fadhiya isagana la yidhaahdo cabdirashiid sheekh saciid oo Addis Ababa ama African Union ka ahaa diblomaasi Soomaaliyeed.
وهو إني فديان كوكلو أنا ولي وجهه دارك كل يوم وإذا سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تيجي سراكيل سياسيين هو هذا وجهه دقائق نكو مدن اليمن ونتا كذي موضوع هذا اللوجو ديمقراطيين واقعية ديمقراطية وحبضنا يا لقى قرية علم بارياش وإيك قرين وحن حسوستا لبدا كونية تضبالي شر ديمقراطيين بولشو oo ay ka qayb galeen 3,000 oo Soomaali ah in lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaan filayaa qaar ka qayb galay goobta fadhiyaan buug weyn badan baa ka soo baxay oo haddii la akhriyo wax ka maqan ba aanay jirin laakiin caadadan waxay noqotay xataa sidana wixii ay sanadkii hore samaysay waxa maanta aan samaynayno dadku dadka la gaarsiin ama la akhriyo waxaan ku baaqayaa horta in la akhristo cilmi baarisyadu xal ay keenaan jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baarisyada waxaan aaminsanahay dadaalka ay bixinayaan in dadku aanay wada garan karin laakiin waxaa loo baahan yahay in iyaguna garansiyaan naftirkooda goobtan oo kale waxaa ka dhacaya inay gaaraan qofka tuulada jooga xoolaha ilaashanaya ama beeraha falanaya ama kalluumaysanaya loo baahan yahay waxaan hoosta ka xariiqayaa saaxiibkay gaagaab kaftan badan oo tuuro oo siyaasadeed oo looga baahnaa waana waaya aragnimadiisa dastuurkan mar walba qabyada ah mar walba la leeyahay waa la xaday iyo waa la soo helay 5 qodob baa la isku hayaa buu 5 qodob sababta la isku hayo naftirkeeda daraasad u baahan awrta lama xiriirin kara haddii mid daba go'an ku jiro waqti waa taqaanaan filaya awr daba go'anaa ku jiraan filaya guddiga mid raba hogaamiye hebel siyaasi hebel qodobkan waa u daran yahay hala daayo gobol hebel buu qodobkan u roon yahay hala wado waxaasaa ku dhex jiraan filaya dabada go'an marka waxaan rajaynayaa inay ka gudbaan waxaan usoo noqonayaa mawduucyada halka dib u heshiisiin waa kee dimuqraadiyad ummadda Soomaaliyeed waa rafaaday waa ogtiin gaagaab wuxuu weli waa la wada dib u heshiisiin dimuqraadiyad waxaana bilownay 20 sano ka hor meeshay ku dhamaato horta waa in la qeexo cilmi baaris lagu sameeyo waxay ku dhamaanaysaa oo lagu dhamayn karaa xaqiiqada in la taabto nabarka haddii marax ku jirto weligaaba mari boomaato mari ilaa laga jeexee laga daadiyo madaxda weligii ma haysto waxaan rajaynaynaa marka in arrinta xaqiiqada laga aado ummaddaanu waa wada dhalatay waa wada saaxiib deris bay wada ahayd waxbay wada baranayeen dhallinyaradu waa la wada shaqaynayay qaran sharaf loo Afrika ka tilmaamanaan ahayn annagaana gacmahayna ku burburay si dib loogu soo celiyana annagayna sugaysaa sugi mayso beesha caalamka iyo dowlad hebel aan noo roon iyo dowlad hebel baaxan iyo ma sugayso ummadda Soomaaliyeed inay is-aqbasho iyadu alla ka rabaa inay iyadu isjeceshahay oo wadaniyiin Soomaaliya oo muwaadiniin yihiin inay aqbalaan rabo haddaan taa wada aqbalno waxaa la hubaa inaan xal gaari karno waxaan intaa ku darayaa maxaa ummadda kala geeyey cadaalad darro shubaa halka ka akhriya شوي أبوان أنت كان قالها هذا نكون مدرسة سلام كذا نقدر هل كوك الشيء مسق ماصر عدالة الدفع قفج عليسي قفنا عبيسي تم يفتكوا عضو هذا صوتا واي وحى مدك لقي سير لو قبحيا وحال لو قبحيا الدستور كيكو ذا لأن نلفل وحال إلى لو حاجة لو عن أدر شرعي يفلين لو بوقته وسجينا بور باصارا وحلقنا بقى هي ده فلوتنا كجفان أسجل الفلوت هذه الفلوية دستور هو هشيش بالشيء وما هذا حدش هذه أسجل الفلوية وما ده هو كلا تيجي ما يسمونه كلا فوقانيش وأنا رجع موضوعنا ماشي كبران يبغى هشيشين وارتدي ديمقراطيات وحيتعتبرنا يسافر مكة ويكمل هذا اليرada haweenka
dowlad wanaag adeegyo bulsho ummadda la gaarsiiyo oo mawduucyada noo yaal weeye ee aan saddexda biri rabno inaan ka soo saarno talooyin wax koolaho ummadda soomaaliyeed la gaarsiiyo waxaa ugu dambeeyaan filayaa mawduuca dhahaya doorashada soo socota noocay noqonaysaa qof iyo cod maye nooc kale proportional representation meelo badan aa lagula wareegaya goobaha lagu qaxweeyo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ama shaaha lagu cabo ama xafiisyada ama xarumaha waxbarashada waxaa la isweydiinayaa war maxaa dhici doona waxaa loo baahan yahay muddo kororsi soo maha waxa suuqaya meel walba yahay muddo kororsi uma baahno ummaddan madaxay dooratay u baahan taha ummaddeena ciddii ku riyoonaysa muddo kororsi waxaan aaminsanaha anigu inaan u soconi dowladda xukunka haysa waxaa laga rabaa inay keento doorasho ummaddu ay doorato madaxdeeda sow sidaa maaha mase lama rabo baarlamaanka labadiisa aqaal xildhibaanaa fadhiya waxay ka shaqaynayaan waxaan rabnaa inay noqdaan wax xaqiiqo ah ee ka tarjuma rabitaanka ummadda iyo masiirka qaranka soomaaliyeed xanta waa badan tahay baarlamaanka xataa waxay iska rabaan iyagana qaaran rajadeedin maa ku jiro inay soo noqdaan waxay leeyihiin waxaa uga fiican tahay muddo kororsiga 2 sano isaga basan shacbiga soomaaliyeed yeeli maayo dastuurkuna uma yaala baarlamaanka kaliya maadaama uu yahay heshiis bulsho stakeholdersiisu ama inta ka qaybgalaysa waxaa ka mid a bulshada soomaaliyeed waxaa ka mid a aqoon-yahanada waxaa ka mid a siyaasada noocyada kala duwaniya xisbiyada waxaa ka mid a labada aqaleed baarlamaanka ee xukuumadda marka cid keligeed inta meel la fadhiisata dhihi karta sidaan ha laga dhigo shaatiga anaga ha laygu cabiro inayna jirin baa loo baahaya mise waa khaldana ya halkaas ayaa loo socdaa soomaaliyeed waa xakaarnay annagu hadda horaan u badannay oo odayaal badan oo igudda ah ayaa hor fadhiya jiilalka soo socdayaa mustaqbalkooda lagu cayaaray jiilalka dhallinyarada ee maanta joogiyo kuwa soo socda mustaqbalkooda inaan ka fikirnayna laga rabaa oo aan ku shaqayno waana maysida warha kaa hada intaas ayaan rabaa inaan ku gubaabiyo shirka maskaxda waa la shiili doonaan filaya maalmahan waxaana ka soo bixi doona dadka meesha fadhiya u jeed ma iloobin macallimiin jaamacadii ummadda soomaaliyeed ayaa meesha iiga muuqda oon ka mid ahay marka hadda anugu sheekhul kulliyaan ahay ogaada oo macallimiintana ka mid aan ahay qaar arday ahay qaar dowladdeydii ka mid ahay qaaraan wada shaqaynay qaaraan daris ahayn kuwaan banoni wada dheli jirnay oo hadda odayaal noqday markay dhallinyaradu raalli haato annaga waxaan nahay odayaal waxaan dhallinyaro cuslaataan nahay manihin waayey eyna reexin intaas ayaan rabaa inaan ku gebagabeeyo waqtigoo gaalan awgeys waxaan rajaynayaa marka sida loo fadhiyo madaxweynaha oo shaqo gaarana iyo wasiirro 2 iyo 3 oo shaqo gaarana mooyaan inaan sidaan lagu kala tegin lianna intaanu waxay kariso waxaan rabaa danta soomaalida ku jirta aad iyo aad ayaan idinku wada mahad celinayaa waan idin salaamaya waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آليات ومحسن هاي رئيس الوزراء هراء حكومة مكان كهاي الصومالية بروفيسور علي محمد قادي آليات ومحسن هاي waxaan rabaa hadda inaan soo dhaweeyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federalismka iyo dimuqraadiyadda dowladda puntland maxamed cabdiraxmaan gabarkas waxaa wasiir kusoo dhaweyn doonaa hadduu ala yidhaahdo madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdulaahi بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها puntland سعيد عبد الله الدني رئيسul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ku-meelgaarka Soomaaliya wadane Professor Ali Maxamed Geedi madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladda Puntland ee Soomaaliyeed Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab xubnaha labada gole ka socda dowladda federaalka wasiirada ka socda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya khaasatan wasiirada arrimaha gudaha ee dowladaha
hirshabeelle iyo koonfur galbeed mas-uuliyiinta kala duwan ee ka socda dowladda federaalka Soomaaliya mas-uuliyiinta labada gole ee Puntland marti sharafta akhyaarta iyo aqoon-yahanka kala duwan ee qaarkood meel dheer uga soo safray ka qaybgalka shirkan muhiimka ah saxaafadda gabdhaha dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib ugu horreyn waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo anigoo ku hadlaya dhammaan shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta Puntland intii gacanta ka geysatay qabsoomidda iyo hirgelinta shirkan muhiimka ah oo ah shirka doodaha xagaaga ama summer dialogue waxa la yiraahdo shirkan oo daba socda sidii halkaanba laga xusay shir horey loo qabtay sanadkii la soo dhaafay oo lagu qabtay magaalada Tangarowe oo sidaan oo kale looga soo qayb galay oo iyadana looga hadlayay 20 sano kadib meesha ay maraysay Puntland waxa ilaahay mahadiisa sanadkaana in halgudhigeedu yahay dib u heshiisiin bulsho iyo dimuqraadiyad wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta Puntland ayadoo kaashanaysa hay'adaha cilmi baarista ka jira Puntland waxay muddadan dambaba ku hawlanayd sidii loo hirgelin lahaa barnaamijka dimuqraadiyiinta Puntland ayadoo laga duulayo ballanqaadkii madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ee ah in Puntland maantay aysan ballan qaadayn inay hirgeliso barnaamijka dimuqraadiyadda balse ay ka go'an tahay haddii lahayd in barnaamijkaasi hirgalo ayaa wasaaraddu waxay muddadan dambaba ku hawlanayd sidii loo dhaqaajin lahaa barnaamijkaas sidii loo maali lahaa maskaxda aqoon-yahanka iyo dadka u soo joogay wax badan oo la xiriiro hanaanka dowladnimada hanaanka dib u heshiisiinta bulsho iyo waxa la wixii la xiriira sidii loo hirgelin lahaa iyo taabagelin loogu samayn lahaa barnaamijka dimuqraadiyiinta ee Puntland haddaba mahadcelintaas maanta halkan waxaan u mahadcelinaynaa si gaar ah hay'adda Sitra oo runtii fikirka ah summer dialogue ayadu soo bilowday sanadkii hore sanadkan ay wasaaradda arrimaha gudaha oo ayadu hogaaminaysa kulankan iyo qabsoomidiisa oo si gaaran ah diiradda ugu saaraysa dib u heshiisiin bulsho oo dhammaystiran ama waarta iyo dimuqraadiyad ay farsamada qayb ka ahayd oo la shaqaynaysay waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa muddadii hadda barnaamijkan aanu soo wadnay in hay-adaha cilmi baarista Puntland ka jira oo ay Sitra ka mid tahay oo BDRC ka mid tahay oo kuwa badan oo kale ay ka mid yihiin ay gacan mugle ka siinayeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo xukuumadda Puntlandba sidii loo hirgelin lahaa barnaamijka dimuqraadiyiinta loona shiili lahaa maskaxda dadka ma ahan kulankii koowaad oo wasaaradda arrimaha guduhu qabanayso oo looga hadlayo doodaha la xiriira arrimaha dimuqraadiyadda iyo hirgelinta hanaanka doorashooyinka dimuqraadiyadda ku dhisan ee Puntland waxaa xusid mudan bishii afraad ee sanadkan in shir ballaaran lagu qabtay magaalada Garowe oo ay fududeynaysay oo ay noo qabatay hay'adda BDRC aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinaynaa oo wax badan lagu shiilay oo ay ka soo baxday waxaa la yidhahda policy briefing oo jiha siinaysay sidii barnaamijkan u hirgeli lahaa dad badan oo u soo joogay arrintan ay wax badan uga hadleen halkaana haddii lahayd ma waxaan rabnaa maanta sidii loo yiriba aqoon iyo maskax iyo u soo joogis midnayna kama maqna waxaan rabnaa saddexdan bari oo halkaan aynu joogno haddii lahaydmo inaynu maskaxdeena shiillo oo u shiillo sidii haddii lahaydmo barnaamijkan Puntland maanta ay hogaaminayso oo ay ka go'an tahay oo ah hirgelinta hanaanka dimuqraadiga ee dalkan inuu u gudbo in
puntlandna sidii ay barnaamijkaas ugu horgeli lahaa ay maskaxdiina wax badan ka ogaato isla mar ahaantaasna aynu doodeenna ugu darsanno sidii Soomaaliya ay puntland tusaale ugu noqon lahayd hanaankeeda dimuqraadiga waxaanu ognahay inuu jiro isku dayo badan oo arrintaas la isku dayay ama ha noqoto heer puntland ama ha noqoto heer Soomaaliya oo dadaalo badan hadda laga sameeyay runtiina insha Allah waxaan rajaynaynaa annagoo ku shaqaynaynaa siyaasadda cusub ee ah ka go'aanshaha in hanaankani maanta ka hirgala puntland in puntland ay u noqoto tusaale inta kale ee Soomaaliya sidoo uga shaqeeya nidaamka dimuqraadiga haddii aan waxa ilaahay mahadiisa in sama dialogue sanadkan uu ku soo aaday ayadoo puntland ay cagta saadhay tubta hirgelinta hanaanka dimuqraadiga ee maxaa la yiraahdaa ee ku dhisan dimuqraadiyadda waxa sida wada ogtihiinba waa markii koowaad oo ay ka dhacdo puntland in bilaha ugu horeeya lagu soo magacaabo guddigii doorashooyinka ee ku meelgaarka taas waxay muujinaysaa sida ay uga go'an tahay madaxweynaha dawladda puntland iyo dawladaba in hanaankaas hadii lahayd uu inoo hirgalo insha Allah madaxweynaha ayaa inoo faahfaahin doona qorshahaas oo ina kala hadli doona waxaana jeclahay halkan inaan ku soo dhaweyno ay ula soo dhaweysaan madaxweynaha dawladda puntland Saciid Cabdullaahi Deni soo kalmadiisa inoo yiraahdo shirkan inoo ku jiro بسم الله الرحمن الرحيم رئيسل وزارihii hore ee dawladdii ku-meel-gaarka ee federaalka mudane maxamed cali maxamed geedi madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland maxamed cali yuusuf gaagaab golayaasha dawladda ee federaalka halka nagala jooga golayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee halka jooga diblomaasiyiinta oo uu ka mid yahay ambassador maxamed cali americo aqoon-yahanada cilmi baarayaasha martishaafta kale ee ka soo qayb galay doodda xagaaga ee sanadkii labaad lagu qabanayo Garowe dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waa mowduuc aad u fiican in la doodo oo la wada hadlo waxaa ka dhasha in la heshiiyo haddii doodda iyo hadalku badato natiijadu yaraato